السلام عليكم حفظinta amaanada waa hanashada qulubta dadka ku soo dhawaada daawadayaal sheeko gaaban oo dhacday taasoo ina tusinayso qiimaha amaanada sheekadan waxay ku bilaabanaysaa sidan nin ayaa aaday beertiisa asoo hore u sii waday qaar kamid ah asxaabtiisa markay tageen beertii ayuu ninkii beerta lahaa wuxuu ka codsaday ninkii beerta u ilaalinayay inuu u keeno rumaan macaan beer ilaalihii wuu baxay wuxuuna keenay rumaankii ninkii beerta lahaa wuxuu dhadhamiyay rumaankii loo keenay mana noqonin mid macaan ma aha mid macaan ee ikeen mid kale oo macaan ayuu ku yiri beer ilaalihiisi beer ilaalihii wuxuu ku dhaxlaabtay beertii asoo raadinayay mid macaan balse wuu ku guuldareystay inuu keeno mid macaan ninkii beerta lahaa wuxuu ku canaantay ninkii ilaaliyaha u ahaa beertan sanado ku dhawaad ayaad ilaalinaysay mana garanaysid geedka macaan maxay ku dhacday midda ilaaliyihii wuxuu ugu jawaabay mudane waxaad iga codsatay inaan beerta ilaaliyo ee ma ahayn inaan cuno ama aan dhadhamiyo ninkii beerta lahaa arrintaa waa rumaysan waayay wuxuuna oga shakiyay khiyaano iyo been wuxuuna soo weydiiyay dariska beertiisa si uu u hubiyo waxa uu sheegayay shaqaalihiisa waxayna u sheegeen oogana makhraati kacin inay runtii tahay ninkii beerta lahaa waa isku xishooday wuxuuna u soo bandhigay ninkii shaqaalihiisa ahaa inuu guursado gabadhiisa ninkii ahaa beer ilaaliyaha waa ka aqbalay ninkii beer ilaaliyaha ahaa iyo xaaskiisii wanaagsanaa waxaa u dhashay caalimkii weynaa ee caanka ahaa cabdullaahi ibnu mubaarak amaanada waa shay qaali ah aan ilaalinna wixii inaloo dhiibtay aanu u gudanna sidii naloogu dhiibtay waan liibaanaynaaye insha allah guul iyo gobonnimo ayaan idiin rajaynayaa giddigiin hadduu ku cajabiyo muuqaalkan la wadaag asxaabtaada fariintaadana inoo reeb mahad